habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena live oo soo direen open kanalan maanta ay tahay bisha October 4teeda si toos ah sabti kastaba ayaan ugu barateen barnaamijkan danahay TV Horseed isniin kastana 4ta galabnimo waxa soo galo barnaamijka Somali Star TV oo Cabdiqaadir Salwa u daadahay barnaamijkeena maanta studio-da waxa marti ugu ah oo markaan pause kadib soo gali doono nin la yiraahdo Ali Cabdi Warleere Cali loo yaqaano oo xubin ka ah ururka kacdoonka ee Soomaaliyeed oo ka dhisan wadankan Sweden marka waxaan ka hadli doonaa arrimaha Soomaaliya marxaladaha hadda marayso iyo mustaqbalka waxyaalaha rajeynayaan ururkan Soomaaliya ay noqoto doo eebo nabad ku soo celiyo iyo halkaan waan dhahay dhamaanba dadka barnaamijka daawanaya iid wanaagsan waxaan rajeynayaa dhamaanba iid fiican inay qaadateen waxaan iid udirena hambali hadana TV Horseed Somali Star TV Soomaalida barnaamijkan xiisiso wadankan Sweden ama dibadda ha noqoto xaafadaha Soomaalida ku badan yihiin Rinkeby oo noqotay Somali B aan dhigi karo ama Tensta ama xaafadaha Söder Stockholm ha noqoto Rågsved ama ha noqoto Handen ama ha noqoto Renacka fixetra oo salaamaya isla markaa waxaan salaamaya Soomaalida ku nool Vällingby Hässelby Willestad meel kasta iyo dadka jaaliyadaha barnaamijkan ka daawanaya dadka internetka naga daawado emailka noo soo diray dhamaan waxa leeyahay iid wanaagsan waa maasantiin sida barnaamijkan noo socotaan barnaamijkan qaybuhu ka koobnaan doona hore oo sheegay qaybta horeysa ninka martida caajilad baa inta soo doona hees ninka martida ayaa soo galay kadibna telefoonada waa noo furan yahay maanta oo su'aalaha arrimaha Soomaaliya warbixinaad nooga heesaan ama aad rabtaan su'aalaad inaad weydiisaan qofka martida ku ah studio-da intaan gaban gelin arinta kale waxaan rabaa inaan ogeysiis marka hore halkan ka sheego ogeysiisyada kalena waxaan sheegi doonaa barnaamijka qaybaha u dambeeya laakiin qaybta horeysa waxa way kulan ku dhici doono October 12keed waa sabtiga soo socda haduu ila raali ka dhigo waxa Tensta Tref ku dhacay kulan Soomaaliyeed oo ah Soomaalida iyo Swedishka oo ku saabsan Soomaalida dibadaha ku nool diasporada si door uga ciyaari lahayn arrimaha Soomaaliya marka halkan Stockholm waxa lagu casuumay oo Ahmed Ismaaciil Samatar Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka ah jaamacad ku taalo Mareykanka diinka gudoomiye ka ah ayaa halkan imaan doono ururka casuumana ururka xawtaako wasaarada barqadle ee gudoomiye ka tahay iyo Ahmed Xasan ururka dhalinyarada iyo Swedishka Soomaaliyeed oo ah Svenska Soomaaliska ungdomsriks förbund kulankaas wuxuu ku dhacaysaa u sheegay Tensta Tref waa sabtiga soo socda 12 October saacada markay tahay 3:00 barka ayuu bilaabanaya kulankaas ilaa 7:00 fiidkii
ayuu socon doonaa Soomaalidu idilna waa albaabka u furan yahay oo halkaasna waxaa looga hadlayaa roolkii Soomaalida ka ciyaari lahayd dadka dibadaha ku nool horumarka iyo wanaaga iyo amaanka Soomaaliya professor kan soo sheegay waa professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxayna walaalihiin Cabdi Ismaaciil Samatar laakiin Ahmed Ismaaciil Samatar waa markii ugu horeysay Stockholm imaanayaan kuwada marka ka qaybgal fiican baan leeyahay 12 October iyo 10 Tref marka saan hadda hor u sheegay waa ogeysiisada qeybaha kale ayaan sheegi doonaa marka hore aan cajalada tusiyo heeskan oo ugu talagalnay iida kadibna waxa halkan studioda aan ka wada hadli doonaa arrimaha wadankeena hooyo Soomaaliya akhbaaradna waxaan ka hadli doonaa hay'adda socdaalka immigrationka ku saabsan qaxootidoonka Soomaaliyeed oo berihii u dambeeyay qaar fara badan sharciga loo diiday barnaamijyada la sameyn karo sida dadkaas xuquuqdooda loogu soo celin lahaa ilaa maanta dadka adduunyada dhibaataysan waa dadka Soomaaliyeed Soomaaliyana waqtigan xaadirka ah qof lagu celin karina ma jirto maadaama qof kastaba amaankiisa khatar ay galayso iyadoo hay'adda socdaalka taas ogtahay diidma ay siisaa dadka Soomaaliyeed marka waxaan ka hadli doonaa tilaabooyinka la qaadi karo waxaan studio ku casuumi doonaa dadka ururada Soomaaliyeed oo markastaba u halgamayay qaxootidoonka Soomaaliyeed waxaan rabaa ogeysiisaan sheego dadka waayeelka xataa waqtigan xaadirka waa waqtigii influenzada bilaawaneysay marka tilaal waxa loogu deeqayaa dadka 65 sano ka weyn waayeelka ah cudurkan influenzada Sweden markuu sanad kasta soo galo dad fara badan sidii dadka waayeelka ayuu u yahay dilaa marka tilaalkaas influenzada ayaan ku dhiirigelinaa dadka waayeelka ayagoo la tashanaya dhakhtarkooda hadda cajaladina la daawada hey welcome to the world program dahan in direct sending from Open Canal dagens program kommer handla om Somalia och vi säger Eid al-Fitr till alla muslimer som tittar vårt program och jag har gäst hos mig Ali Jare först jag kommer visa somaliska musik